salaada qorsheeyay asagana dilay gasaga fuliyay oo ka shaqeeyay oo taliyihii ciidan laali wixii ku jiro dhan inay dhintaan shabaab ma ahan miya door buu shabaabka ka baxay. halkani waa dunida media daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan dunida media. haddii ay tahay marka ugu horeyso waxaan daawada ka codsanaya in janalka subscribe saarto sidoo kale gambaleelka aad furto si uu kusoo gaaro muuqaal walbo aan halkan kusoo gudbino. ha ilaabin inaad like saarto muuqaalka una sii sheergarayso saaxiibadaada. aynu ku bilownay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda ee nisa Fahad Yaasiin ayaa soo helay xog qarsoodi ah taasi oo ku saabsan shirqoolkii lagu dilay Allah u raxmadee taliyihii guud ee booliska ee gobolka Banaadir Taliya Farxaan Qaroole. Fahad Yaasiin ayaana sheegay in dhimashada Farxaan Qaroole uu ka dambeeyay taliyaha haatan ee hay'adda nabad sugidda nisa Mahad Maxamed Salaad, wuxuuna cadeeyay in Mahad Salaad uu ugu talagalay in la dilo isla markaana la dhabar jaro dhammaan taliyayaasha ciidan, isagoona sheegay inuu si hoose ula shaqeeyo ururka Al-Shabaab, sidaas darteed uu maalinba mid ka qabto si uu lacag ugu helo. waxaa haatan ka faa'iideysanaya kacdoonka dagaal ee lagula jiro ururka Al-Shabaab kaasi oo dhawaan ka bilowday Soomaaliya, gaar ahaan gobolada ay haatan ka armiyaan ururka Al-Shabaab. dhanka kale Fahad Yaasiin ayaa sheegay in ujeedka labaad ee uu Mahad Salaad uga dhigayo shirqoolada taliyayaasha ciidanka iyo saraakiisha dalka koowaad ugu sarsareeya ay tahay inuu kasoo horjeedo dhammaan xubnihii ka tirsan dowladda ee la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Mahad Salaad waxaa doortay isla markaasina xilkani u magacaabay madaxweynaha haatan talada dalka haya ee Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu xilka madaxnimo kala wareegay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Fahad Yaasiin oo ah taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda nisa waxaa kale oo uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu uga digay magacaabistii Mahad Salaadan iraahde oo uu ku sheegay in Mahad Salaad uu yahay in la shaqeeya ururka Al-Shabaab. Mahad Salaad ayaana Al-Shabaab u fududeeya soo gelinta hubka iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo soo gala magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya si ay howlgallo ugu fuliyaan iyo sidoo kale inay weeraro ka fuliyaan goobaha ay ku kulmaan siyaasiyiinta xubnahooda kala duwan oo ah hoteelada markaasi ay ku wada kulmaan. Mahad Salaad ayaana xog laga helay waxay sheegaysaa in dilka taliya Farxaan Qaroole uu ku qasbay khilaaf dhex maray labadooda xilliga weerarka lagu qaaday hotel Xayaat oo ah markaasi hotel ay ku wada kulmi jireen qaar ka mid ah xubno ka tirsan dowladda oo lagu qaaday weerar culus kaasi oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab isugu jira iyo weliba xubno ka tirsan dowladda. kadib weerarkii ay gudaha ugu galeen hotel Xayaat xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaana halkaasi dhibaato ka geystay ayaa waxaa halkaasi tagay weerar looga saarayay ku qaaday ciidamada Harmacad iyo Gorgor oo uu markaasi hogaaminaya Allah u raxmadee taliyaha geeriyooday Farxaan Qaroole, waxayna ku guuleysteen inay soo saaraan qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku jiray si ay badbaado ugu sameeyaan nafsadooda. ha yeeshee Mahad Salaad ayaa taliya Farxaan Qaroole oo markaasi ku sugnaa hotel Xayaat iyo ciidamada uu watay ku amray inay markaasi joojiyaan howlgalka ay halkaasi ka badaan maadaama ay ururka Al-Shabaab xubnihii ka tirsanaa ee gudaha u galay hotelka ay diideen inay kasoo baxaan isla markaasina ay dhibaatooyin ka dhex geysanayeen. ha yeeshee ciidamada Harmacad iyo Gorgor uu hogaaminayay taliya Farxaan Qaroole ayaa wuxuu ku amray in markaasi ay duqeyn ku sameeyaan isla markaasina hubka noocyadiisa kala duwan u adeegsadaan, iyadoona dadka shacabka iyo xubnaha kale ee meesha ku jiray ay ciidamada markaasi kaga soo badbaadinayeen inay kasoo bixiyaan daaqadaha, iyadoo uu halkaasi howlgal culus ka socday isla markaasina lagu doonayay in laga soo saaro guud ahaan xubnihii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee gudaha ugu jiray hotelka maadaama ay ku jireen gudaha xubno ka tirsan dowladda iyo dad shacab ah oo halkaasi waqti ku qaadanayay. ayaa waxaa mar qura goobta imaaday taliyaha haatan ee hay'adda nabad sugidda nisa Mahad Salaad, isagoona Farxaan Qaroole iyo weliba askartii uu hogaaminayay ku amray isla markaasina ugu baaqay inay joojiyaan howlgallada ay halkaasi ka badaan. Mahad Salaad ayaan ujeedkiisu markaasi ahaa
inay badbaadaan xubnaha al-shabaab ee ku jiray gudaha hotel xayaad maadaama hotelka loo adeegsanayay hub culus lagu garaacayay si ururka al-shabaab ee meeshaasi ku jira looga saaro ama waxyeelo lagu geysto. Ha yeeshee Mahad Salaad ayaa arrinkaasi diidanaa maadaama uu si dhow ula shaqeeyo ururka al-shabaab una qaabilsan yahay badbaadintii weliba soo xareynta xubnaha ka tirsan al-shabaab oo uu soo geliyo magaalada Muqdisho iyo weliba goobaha markaasi aan loo ogoleen inay qof walba iska galaan. taliyaha hay-adda nabad sugidda ee Mahad Salaad ayaana markaasi waxa uu la hadlay Farxaan Qaroole. Ha yeeshee taliya Farxaan Qaroole ayaa ku madax adeegay arrinkaasi isagoona doonayay inuu soo badbaadiyo dadka halkaasi ku jira ciidamadana ku amray inay sii wataan howlgalkooda iyadoona uu Mahad Salaad ku sugnaa goobtii uu markaasi ka socday weerarku ahayd hotel xayaad oo ku yaala kilomitir 4 ama lambar 4. waxa uuna markaasi Farxaan Qaroole ku amray in uu ciidamadiisa dib ula laabto isaga oona sheegay inuu isaga yahay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo weliba amniga guud ee magaalada Muqdisho. taliya Farxaan Qaroole ayaana markii dambe wuxuu go'aan ku qaatay inuu askartiisii uu halkaasi ka soo saaro howlgalka ka sameynaysay maadaama uu taliyaha hay-adda nabad sugidda guud ee Fahad Yaasiin uu ku amrayo inay ka soo baxaan halkaasi. waxaana halkaasi xubnihii ku jiray gudaha ee al-shabaab ka socday usii fududaatay inay waxyeelo kasii geystaan gudaha hotelka iyagoona markaasi weerarka iyo weliba ku jirista halkaasi ay ku qaadatay muddo 32 saacadooda kaasi oo noqday howlgal aad u culus. waxaana halkaasi si nabad ah uga baxay xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee weerarka ku qaaday gudaha hotel xayaad iyagoona baxsashadooda uu fududeeyay Mahad Salaad oo ah taliyaha hay-adda nabad sugidda NISA. ilaa iyo haatan ma jirto nolol ama geeri lagu helay xubnihii markaasi gudaha u galay hotel xayaad oo weerarka ka fulinayay. waxaana arrintaasi fududeeyay taliyaha hay-adda nabad sugidda ee NISA maadaama uu isaga halkaasi ka saaray taliya Farxaan Qaroole ciidamadii uu hogaaminayay oo halkaasi ka waday howlgallo. waana wadadii ugu koowaad ee uu markaasi Mahad Salaad ugu qaaday cadowtinimada Farxaan Qaroole. ugu dambeyntiina waxa uu dhigay shirqool taasi oo uu u geeriyooday taliya Farxaan Qaroole. waa tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo afmirayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanaysiin Dunida Media. haddii ay tahay markii ugu horreysay janaalka waxaan kaa codsanaynaa subscribe saarto sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka. waad ku mahadsantahay la joogistaadii weliba la jaanqaadka